بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإني السلام أصحابي سو دوادا كسو دوادا جنة كنوريا كسو دوادا قعمو فرن كسو دوادا قلبي نجعل إنتا كدب وحيني رجينا نبا قبتين عافمات قبتين أن هدان إنتا كقود بسلامتا أن وحان دوني مانتا إنا كهالله أن لبا حنونا دوني إنا كهالله لبدا حنونا حنونك ماركتي أن أتروشك أي حنونك reymaaga iyo cilaaqaadka ay isla leeyihiin qabowyaha ayaan doonayay inaan ka hadlo labada xanuunba waxaa kaga soo hadlay oo faahfaahin tafaasiila aan kusoo bixiyay fiidiyoyaha ka sameeya oo ku jira youtube-kayga haddaad raadisid waad ka helaysiin insha allah laakiin maanta waxaa isdul taagaynaa qeybta cilaaqaadka ay isla leeyihiin xanuunadani iyo qabowga ay isla leeyihiin iyar haddaa inii soo koobo xanuunadani atrowska iyo reymaaga haddaan inii soo koobo waa xanuuno ku dhaca laalaabyada ku dhaca hadday faraha tahay hadday xusulka tahay hadday jilbaha tahay iyo hadday maaragtay tunka ay tahayba waa xanuuno laalaabyadaasi ku dhaca oo maaragtay dharaarku ka dhammaanay oo sidii loogu talagalay aanan u shaqaynin haddaan guud ahaaneed inii soo koobo xanuunku isagoo sidaa ah ayay waqtiga maaragtay qabowyahana ay maaragtay xubnihii ay sii adkaanayaan oo maaragtay sii tirigsanaanayaan oo sidii loogu talagalay ayna u shaqaynayn marka waqtiga qabowyaha marka maxay dadku sameeyaan badidooda dadkeena ha u badnaato walibane oo macluumaadku ay nagu yar tahay waqtiyaalada qabowyaha waxay sameeyaan dadkeenu badi guryaha ayaa lagu jiraa kulayl ayaa la raadsanayaa lama dhaqdhaqaaqayo lama baxaayo marka badi gudaha lagu jiraa oo kulayl laga raadsanayaa laakiinse waxayna ogeyn marka ma aragtay aad dhaqdhaqaaqa aad yaraysid ina maarto xubnuhu aysa sii galayaan oo xanuunka uu sii badnaanayo marka waxaan doonaya inaan ku baraarujiyo dadkeena inaan ku baraarujiyo inay dhaqdhaqaaqa ay badiyaan oy baxaan oo maaragtay ay soo lugeeyaan oo ay dhaqdhaqaaqa ay badiyaan sida xubnuhu ugu subal u haado uu shaqadiisa sidii uu qabanaya uu qabto hadduu xanuunku xadaaf noqdan kinina waxaa jiya xanuun baabiyaha ayaa jira oo la qaataa ood kala hadli karaysid dhakhtarkaaga marka waxaan doonaya inaan dadkeena ku baraarujiyo waqtigan qabowyaha inay dhaqdhaqaaqa ay badiyaan oo ay ku dadaalaan inayna maad aragtays odhan waa qabow guriga iska fadhi waa qabow isdad waa qabow ha dhaqdhaqaaqin oo guriga ay ku dhex jiraan waa ogahay oo waa xanuun ayay ku hayaan laakiin haddana haddaad sii fadhiisatid oo dhaqdhaqaaq badan aad sii sameyn weydo waxaa imanaya inuu xanuunku sii bato inuu maaragta sii jibaarmo talabaadna intii yarayda aad ku dhaqdhaqaaqaysaad qabsanaysay aad ku socotay inayba kasii darto aad xamil gabtidba intiina ay kari weydo oo intiina ay dee xanuunkii hore ku haye iyo firfircoonidii yareydna ay kaasii lunto marka waxaa wanaagsan inaad dhaqdhaqaaqdid intaa wixii ka badan haddii xanuunku xadaaf noqdana inaad dhakhtarkaaga u tagtid oo dawooyinka xanuun biyaha ayaa lagu siinayaa oo lagu qorayaa waayo waxani waa chronic sickness waxay yidhahdeen waa waxaanan soconayn oo daa'iman ku haysanaya laakiin aad la noolaan karaysid adigoo ma aragtay habkii kugu habboonaa ama maaragtay habkii xanuunkaaga aad u dhimi lahayd ama maaragtay habkii aad dhaqdhaqaaqaaga aad u kobcin lahayd waayo waa sidii trainingkii oo kale maalin kaste waad wadaysaa waad dhaqaaqaysaa oo waad sameynaysaa laakiin mar haddaad joogsatin wixii uu kasii daraya laakiin haddaad kusii wadid laga yaabaa inaad inuu ba-ayo maaha laakiin inaad maxay hayd aad hore aad u maxaan ku tilmaamaa aad horay aad u dhaqaaqaysid ama horay ay faa'iido aad u helaysid
ayaa wanaagsan. Marka in lagu dadaalo dhaqdhaqaaqa, in lagu dadaalo ayaan doonayay inaan ku dhiirigeliyo dadkeena, bulshadeena labadan xanuun ay hayaan. Allaha ka caafiyana, allaha maaragtay ha garab galana, allaha ha u fudaydiyo. laakiin dhaqdhaqaaqu waa muhiim. waxaa jeclaystay inaan intaa yar ay nigu baraarujiyo oo maaragtay inigu dhiirigeliyo inaa maaragtay dhaqdhaqaaqa lagu dadaalo, inaa maaragtay guriga la joogin, inaa maaragtay bustaha hoosta laga gelin oo laysku dadin, laakiin inaa dhaqdhaqaaqdid waa wax adig ku habboon. waa run, waa xanuun, waa run, waa dhibaato, laakiin haddana inaad gacmaha laga laabto maaha, inaa maaragtay la rajo dhiga maaha. waa in maaragtay la socdaa oo la lugeeyaa oo hawshii aad qabsanaysay la isku dayaa inaad qabatid. haddii uu xanuunku yahayna xanuun wax la xamili karayn oo maaragtay dhibaato badan keenay hadduu noqdana in maaragtay dhakhaatiirta la tago oo xanuun bi'iyaha la weydiisto. waayo waxan waa chronic sickness baa la yidhaahdaa, waa wax joogto oona kaa bacayn haddii toolo aad la noolaanaysid. marka waxaa jira xanuun bi'iyo ayaa loo qoraa dadka, marka in lagu dadaalo oo dhakhaatiirtana wixii ay kugu caawin kareen lagu caawiyo, adigana aad isdhiirigelisid, naftaada dhiirigelisid inaad hore u socotid ood dhaqdhaqaaqaaga iyo wixii aad qabsanaysay aad qabsatid ood ku dadaashid inaad maad aragtay xubnahaaga aad wixii ay qabsan lahayn ay sidii u qabsadaan oo joogsan. waayo markay joogsan dib u dhacayaa imanaya. marka intaasaa doonaya inaan inigu baraarujiyo waqtiyaalaha qabowaha ina maaragtay dhibaatadaas ay dadku la kulmaan, laakiin in maaragtay lagu dadaalo inaa aad dib u dhacana kugu iman oo hawshaad sidii u qabsatay insha allah. ilaahay maaragtay caafimaad degdegana ilaahay maaragtay haynisiiyo, ilaahay inii fudaydiyo, ilaahay inay garab galo insha allah. iyagiyo inta kale xanuunsanaysa xanuunada kaleba haysta, ilaahay caafimaadka inoo daayo, ihina inuu maaragtay ilaahay kaalmeeyo, ilaahay uu dhibaatada ka dulqaado, ilaahay maaragtay uu nasriga usoo dadejiyo, ilaahay maaragtay inuu ducadeena inaga aqbalo, ilaahay maaragtay inuu ummadda muslimiinta mideeyo. marka intaasaa kaga gudbi lahaa. wallaahi waa murug waxa socota, wax la samayn karaayo ma garanayno, ee ilaahay ducadeena ha naga aqbalo, iyagana maaragtay dhulkooga nabad ha uga dhigo oo silican iyo saxariirta ilaahay ha ka saar insha allah. sidaa iyo videoga dambe xiga insha allah. maca salaama, bye bye.